isku taagno dhulbaanta gabadheeda baa waxaan ku yiri adeer bal dhulbaanta ka hor adoo haddaan yare la sheekaysana dhulbaanta ka hor baan ku yiri waxay tii darigaan carruurtahay gabadhaas markaa waa 15 16 meelaha markaa qof weyn bay soo haystaan laakiin ay carruur bay noqotay waxay tii markaan carruurta ahayn waxaan ku cayaari jiray geed xulbo la yiraahdo oo kaliya baan inta soo qoran oo gobol yar qodno baan kan waa arag iyo kaas waa geed iyo kaas waa lood iyo caynkaas oo mid carruurta ka mid ah ma garto barkiriga soo buro adigu oo dhaqo ma gartay intuu iska taago ilaada walaa ariga ku raaca walaa ariga ku raaca waxaan ma jeedaa macnaha gabadha ay markay leedahay dhulbaanta waa ilmaha yar aan kiriga soo buro garanayne lee walaa ariga ku raaca macnaha waa si garan kartaan waxa adigu samaysan karto oo aan aqoonteeda leedahay oo capacity-geeda leedahay oo degaan iyo dhul iyo dad bay ilaahay siiyey haddii inaad cid marti uga noqoto waxa alla ku badan maayo waxa waa isbedel weeye سعيد إبراهيم دعاني أفتاك وأرنتها لفتينا وحكدي يعني مركا يدنا أساسه خلق صدق تلقوان الأهلاء ينتظرنا ويلا تفتحي ذاتك إن شاء الله صدق تلقوا إن شاء الله وسنق سوكو بدون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمان مجاعد رضا حليمو حسين مرسمي ومركز يرديان كي أي كودانتاي ولقيت أريد كل راعي شفتي أي ضدك شوغان أي تقين أي عند لوجو تجي ديان كي لوجو كفصدي سيدو عاقل كوينو شرحي كدبنا للجوراعي كنتي ومد كامل هذا قوينا تفور حموي كأك وفرها بدن المعمول كحد الدجاج ملا قاكم الدجاج كوهيا أي كوهيا شعب الدجاج ملا هذا محيي لو بيكون وحسبي هاي إن بدن والله جحد لي دباتوين كا لأنه كوهيا يتن جدا بسلة تجيله اللي بيستحلمه هل كان واحد درا كوهيا ورقات وبتيشن أن جعل هاي قف كسر وهكذا شوجا وصحيحه مجلسنا وكوكرو وحلو من دون وزارة دائمة هدية الدولة كان أن نشوفنا يقيتها وقابل سن خرومرينتا عالمية خاص وخرج آل فرقا كب حسمام كسومالنا كدبكا كوهاي شعب كينا قبل بن حليمة يقول بيسان يقوي كل بيسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مركورة إلهي بمحضله إلهي نوكل السيئي مدرسة خير كغبطة سوق كان سفرنا نعدي يكون دولوبة إنه مسوي النبت قليل وسوق كان إله عصيد محضرنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مركة حجة waxaa marka u horeysa ku soo dhaweynaynaa xafladeena magaalada Birmingham anigoo afkiina ku hadlaya waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxda ama maamulkii Khaatumo G11 safarka dheer inoo soo galay oo ay ka mid yihiin Ali Khaliif Dr. Ali Khaliif iyo Dr. Abdirashiid waxaan leenahay Dr. iyo G10 maamulka Khaatumo ku soo dhawaada هولك كان كي مركي لبعض أو اعتمادان ويا مع مركي كواب تذكر الله تذكي وحي عيني كبرتين بين كسبيان ما وحي عادي تيرانتي كم مغنيدين يكون صوكرني هذا وحوم باليسو شيك شايع برعوم ميل لوغو صحاحي odayaasha Soomaaliya sanaag ay saxaxaan Somaliland baan ka mid nahay oo wadanka hal kala gooyo ma jirto ugu warhamay nimankan dhulka iyo cadan soo qabanayna eeda iyo cada waray waxay noocan soo qabsanayna arrin baa meesha tan jirta
arrinta ugu weyn ee hadda xiisadda iyo ciidamadan xudun lagu gadaamayo waxay u socotaa shirkado Norway, Ingiriis, Turkey iyo Somaliland la saxeexay shidaal in lagu qodo Somaliland meesha gaaliya islaamba la isku raacay haddii shidaalba Soomaaliya laga helana waa Nugaal Valley waa hol anigu waxaan odhan lahaa sheeko aan qolyahan uga sheekiyey mid cidahaasu islaantiisa u dara yaa qaxooti noqday oo markaasay waxay tageen Holland habeenkii dambe uu soo qaylay isagoo ekaa marayay markaasuu yidhi laba saddex dhabanaanay soo dhirbaax show qoftanayba markaad magaalada timiba meel karaatiga laga barto yay gashay wadaadkiibaa u soo dhawaaday si dhibaasay waa ku dhufatay halkaa meel ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi tood meeshu miyay qoyanay maxaa kula siit wuu soo kacaysay haddana waa ku dhufatay meel daran oo kale ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi waaba tii aan ogaayo jinniya galeen warooy nimankii aynu ogeyn oo shidaal raadinaya waa hadday u suurta gasho waa kuwiiba jinniya galeen war bal arrintaas intay nimankaasu shuuqi nagu noqon lahaayeen warooy caqli aan la nimaadno aynu sidii aynu iga rumaysta marmarka qaarkood siday ku timaado mooye marka lagu garto khaatumo inaad tahay ama dariiq bartankii ahaato ama laba baabuuro isdhaafi ahaato ama dukaan aad alaabka gadanaysa ahaatee waxa la hayo dhan waa la joojiyaa bogaadin waa lagu bururayaaba khaatumo ahaan war intaa waxa ka fiican ee ummadda Soomaalida aynu ka rajayn karnaa maxay tahay waxa dhab ah in la ogyahay taariikhiyan loo ogyahay haddana shirkii talaax ka dhacay ay dadka u sugtay in ay dadka khaatumo dhulka Soomaaliya sanaag iyo cayn ku nool yihiin ay xubin firfircoon oo Soomaalinimo iyo qarannimo u dhimanaysa hadda oo la joogo ay leeyihiin meesha qura ee Soomaaliya maanta dad ay calanka u dhimanayaan waa dhulka ay khaatumo ay joogto oo damaanaka afka ugu goray dadka iyakaa saale waa runsiya waxaan rabaa inaan wax yar tilmaamo kadibna aan dhowr qodob oo kooban ka hadlo أولا waxaan mahadsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadaha isugu yimid dantan inaga dhaxaysa waxaan rabaa inaan hal noqdo fahmo markii daraawiishta la jebiyey oo talaax lagu kala tegay 21 sanana dagaal lagu jiray ummaduhu markay jabaan waxbaa ka dhashay waxa ka dhashay waxaa weeye inay taladu lunto talada hadday luntana waxaa ka dhasha inay ummaddu wax aqbasho qaabiliyad waxa la jira qaabiliyadu waxaa weeye wadamada adduunka saddexaad markii la gumaysanayay siba caalamul islaami waxay u bislaayeen in la gumaysto tusaale aan siinaya nimankii ataturkiga la odhan jiray ataturk markii ay baqdaad oo caalamul islaam xadaaradda hogaaminaysay iyo khilaafadaba ay qabsanayeen oo Tajle iyo Furaad wabiyadaasi ay noqdeen biig soconaya waxaa la sheegaa oo mu'arriqiintu ay soo wariyeen 100,000 200,000 oo nin oo muslimiin inta meel la fadhiisiiyo waa gabadhi waxay wadataa seef markay ka shaqo tiraahdo waa ii soo noqonaya sii fadhiista intaan mid kala dooranaya hal buu disha soo ummadda haddii wahan ku dhaco wareegto ummaddu taladuna ka baahdo waxaan aad arkaysaa ma ku dhaca waa sunan weeye marka ummaddeenu waxay qaabiliyad u noqotay 100 sano ee la soo dhaafay markii la kala tegay
jihaad barakaysan buu ahaa laakiin jihaadkaas dadkii ka dhashay survival bay galeen dad badan baa soo baxay aqoon leh dowladihii soomaaliya wax ka noqday caalamka magac ka yeeshay laakiin talo aynu maqnaba lahayn may jirin soo bal 100 sano ummad aan weligood tashan bal adigu imaajin gareen maskaxdaada waxa ay keeni karta in lascanood la qabsado oo in hebel soo kaxeeyo lascanood kugu keeno xudun kugu keeno talax kugu keeno dee sababtu waxa weeye anigu haddaan maraykan jaanis u helo ilmahaygu inay igu koraan oo aanan haykal ka sarreeya aanan lahayn intiinan kalena aada yurub iyo dad waxay dhisteen aada hesheen oo fursad u hesheen ninka gaajaysan ee aan arkay wax intaa dhaafsiisan calooshiisa iyo ilmihiisa haddii la yidhahdo aabbaha iyo hooyadaa soo dil maanta qadeenaysaa uu samaynaya sidaa daraaddeed vacuumka ama meesha waxa ka qarsoon oo ka maqan waxay ahayd in aynu samayno haykal ka sarreeya afraadda iyo jiribada aan nahay so G15 markay wareegayeen dhulka aan u dhalanay oo dhan waxay ahayd bilow fiican oo ah in la raadiyo wax ka baxsan jifida iyo reerka aan nahay oo la raadiyo common goals waxa loo yaqaano wax ina midayn kara maxaa ina midayn kara مثلا قفك كل كلمة وده شيء وقدم قرية جفيدة قوية لكن ما أرجع تانجراس قف أي طبقة تعين قدم قروح كسر جفيدة قوية ولذلك وعاك ساعتين غير شغل غير قضية وحيوروني يعني مال بدر كجدع هتجيب البهانتو ده اللي يمسون عليها مسلاس مركب وإلا أبوه وحكسر جفيدة سو خاطر هذا مركب السنين يجي في سنة تروح تجسي oo G6 rag odayaasha iyaguna fikirka keeneen la isugu tagay waxay ahayd in la abuuro haykal ka sarreeya jifida iyo qofka oo markaas la badbaadiyo haykalka guud si markaa jifida u badbaado qofkuna u badbaado